waxaa weeye marka tan labaadna taas waay waxaad og tihiin halkan uu dagaal ka bilaabay labada gobol oo Jubbaland oo xortaba dagaalkiisa waa sameeyay hadda buulaha uu fadhiyaa buulaha maruu ka hadlay wuxuu dhahay labada group oo dirireysana inay arinta dejiyaan qaba adoo waa asaga ciidanka diray oo diyaaradaha diray oo dagaalka riday ana teer samaana idinku dilaaway gacan saddexaad waxa ogtiin abuud waa wixii ka dhacay oo hub la tahriibinayo oo shabaab iyo ganacsato iyo wax la aysan jirin wax la aan la aqoonin dadkii qabtay waa lagu laayay madaxda Soomaaliya waxay dhaheen madaxweynaha iyo soo shirka amniga gudoomiyay hubkaas anaga ma naqaan cid dadkii inay apology gareeyaan waa diideen inay magdhow siiyaan waa diideen hadda 2000 oo iyo 500 oo ciidan ay Puntland ku diyaarinayaan horta waxa la rabaa marka dadka inay si fiican wax u fahmaan la rabaa oo wuxuu ay noqon dadka in loo fahamsiyo inta dastuurka la isku hayo iyo doorashooyinka saas ma wax la isku hayo meeshaan meel ay ku qoran tahay ma jirto dawladnimada Soomaaliya oo 66 jirsanayso saddex heer yay soo martay dawladdii hore oo la yiraahdo jamhuuriyadda rayidka ahayd waxay ahayd jamhuuriyad fiican oo dimuqraadiyad ku timid resource-ka lagu xadgudbay laakiin dastuurka iyo dawladnimada iyo deegaanada dhibaato kama dhixin laakiin resource-ka lagu xadgudbayo khayraadka waxa lagu qaatay yaa taqaanaa adiga maxaa taqaanaa ma aha yaa taqaanaa wax la dhaho dawladda ka dambeysay oo kacaanka runtii waa dawladda guuleysatay oo wax qabatay oo horumarka keentay laakiin waa guul dareysatay maxaa yeelay dalkii waana hayn weysay waana wareejin weysay dalkan markii kacaanka ay jamhuuriyadda rayidka dhalanaysay wuxuu ahaa 8 gobol iyo 42 degmo 9 sano oo jamhuuriyadda rayidka 6 degmo ay ku dareen 8 gobol oo 6 ay koonfurta tahay iyo 2 waqooyiga ah iyo 48 degmo ay kacaanka qabsadeen waxay ku dareen 10 gobol iyo 46 degmo 92 degmo sababtay u tahay dalku u yahay 18 gobol hadda marka la fiiriyo goboladaas 10 dalka lagu daray 3 gobol moogi inta kale waxay ahaayeen caasimadooda magaalooyin sii jiray for example gobolka Awdal gobolka Bari gobolka Nugaal bari maaha Sanaag gobolka Nugaal gobolka Sool gobolka Galgaduud gobolka Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe Bakool Gedo Jubbada Dhexe waa 10 gobol lagu daray markii laga saaro Baki oo Awdal mataqaana meeshan oo Awdal la dhaha oo magaalada madaxiisa Baki tahay iyo Gedo oo Garbaare tahay iyo Jubbada Dhexe Bu'aala tahay oo ayaga meel aan magaalooyin ahayn caasimada laga dhigay inta kale waxay ahaayeen meel magaalo oo waaweyn ah oo magaalo madax gobol noqotay magaalooyin weyn oo degmooyin ay ahaayeen dawladda marka hadda timid oo jamhuuriyadda saddexaad loo yaqaan mar hore aad iga maqasheen walow adduunku uusan ictiraafin allah u naxariista cali mahdi maxamed iyo cabdi qaasim dad madaxweynayaal ah oo faamiladooda la noolay ahaayeen kaaraan iyo waxay joogeen iyo hodan madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed allah u naxariista madaxweyne u horeeyay Puntland oo madaxweyne dawladda federaalka jamhuuriyadda federaalka ee ku meel gaarkay haddii waxyaabaha kale oo dhan la isku diiday wuxuu ka tagay caasimadii Soomaaliya Suu Maxamed Siyaad Barre ugu baxay usan madaxweyne fariisanin dekadii oo xirneyd airport-kii oo xirnaa iyo bangi Soomaaliyeed afartan oo shaqeynaya oo dawladda Soomaalida gacantooda ku jiro iyo xilka ka tago iscasil Sheekh Shariif ayimid Sheekh Shariifna wuxuu qabtay 5 shay oo waaweyn oo igana kuwaas aan ka dhicin oo ah in shabaabka dadka xamar yaqaan 15 May waxaa saarnaa shabaab Cabdullaahi Yuusuf ninka telefoonada u wada Ismaan Dheere nin la dhaha Cabdullaahi Yuusuf oo gaari inta ka degay markuu kala degayo daaqad intuu ka furay uu madaxweynaha ka degay
oo daaqada xir leeyahay inta ka toogteen meesha hoostiisa ku dhintay marka shabaabka jidka waxaa la mari jiray keliya midkan oo hadda qabuurihii uu qufanaya xasan mara kan maka almukarama iyo lambar 4 50-50 lagu mari jiray aniga waxaan ka mid ahaa saraakiishii ka howlgashay oo gobolka banaadir haysay waxaan taliyo ku meel gaar ka ahaa booliiska gobolka banaadir markaas sheekh shariif markuu yimid marka wuxuu qabtay in shabaabkii laga xoreeya caasimadda ay noqoto meel xor ah oo lagu shaqayn karo wuxuu sameeyey in dalka laga jaartarkii la bedelo oo dalka dastuur loo sameeyo ku meel gaar ah wuxuu sameeyey asiga ka hor dowladihii hore oo dibadda lagu soo dhisi jiray in gudaha lagu doorto oo 275 xildhibaan xamar lagu doorto oo guddoonkooda doortaan oo madaxweynaha dalka doortaan oo asiga kii bedelay oo ku meel gaar ka baxo xasan sheekhan ninkan oo abukaataha waxaan ka maqlay wuxuu dhahay wiilka oo shabaabka ah wuxuu u baahan yahay in dastuurkan uu qayb ku leeyahay ciqaabihiisa iyo xaquuqihiisa asaasiga waa sax maxaa yeelay xasan sheekh madaxweynaha fiqiga oo wasiirka oo gaashaandhigga madaxa ifranku wasiir gaashaandhigga hore ah hadda badii dekedaha jooga xasan macalinka cadaaladda iyo dastuurka jooga kulligood waagaas dadkii nala diriraya ahaayeen oo isneebarada iyo istriibyada watay maantana dalkay xukumaan marka xeerka iyo dastuurka sababta loo dhahay waa wax dadku iska leeyihiin dadka markii la dhaha say isu neceb yihiin isay isu jecel yihiin ma aha waa dadka soomaaliyeed waa qodobkan u socdo weeye jaartare meel ay ku qoran tahay ma jirto laakiin dowladda soomaaliya 66 sano markii laga saaro 1 sano iyo 7 bilood oo maxaa raacigaal uu prime minister ahaa prime ministerka dalka iyo madaxweynaha wii idaarooda haystay meelna kuma qornayn meelna kuma qornayn